بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سو دhowaada akhyaarta dhammaantiin. casharkan waa casharkii saddexaad ee ku saabsanaa barashada luqadda la yiraahdo Microsoft C# programmiga ah. Marka asaaska hoose ayaan baryahan dhiganaynay. Waxaa casharkeena hore uu ku saabsanaa inaan xogaa yar ka shaqeynay data typeska noocyada u kala baxaan qayb ka mid aan sameynay. maanta marka waxaan rabaa in aan ka hadlo qayb yar oo ayadana ku saabsan data typeska ayaa wax u sii kala bixi kartaa iyadoo macnaha iyadoo noocyo kala duwan ayaa haddana waxa la sameyn karaa waxaan isticmaalaynaa declaration nooc kala oo iyadana aan meeshii aan integer ka hormarin lahayn ama string ka hormarin lahayn. Microsoft oo kale waxay leedahay var wax la yiraahdo. marka haddaad variable ka hormariso var data type kasto aad u qorto asaga automatic siinaya. laakiin sida lagu ogaan karo waa fiirinayna insha Allah. waxaan la qaybsanayaa wax yar shaashada wax yar intusaya halka ila fiiriya hadda saa ujeedaan waxaa ujeedaan halkan baan umaynayaa sawirkan waa arkaysan soma si fiican sawirkan marka wuxuu ka hadlayaa inta waxaan u kala saarnay data types ka waxaan u kala saarnay string oo asaga gooni ah class ah iyo waxaan u kala saarnay wixii numbers ah oo ayagana gooni loo yaqaano. numbers oo dhan marka programming laga hadlayo waxa la isugu keenaa faracyo kala duwan buu leeyahay. numbers waxay u kala baxaan ama integer asoo ah oo heel tool ah ayaan tooraan soo qaadanay. waxaan ula jeednaa marka whole numbers ka sida 5 6 26 100 waxaan kuma wadan ama floating point numbers ku dhahan oo dhibicda wada waa decimal numbers ka labadaas u kala baxaan. integer ka marka wuxuu kala baxaa oo la isla dhahaa wixii loo yaqaano byte waa byte waa halka xabo. short wax yar integer ku yahay int 32 marka 8 bits waaye byte ku. short waa 16 bytes. integer waa 32 bytes. long waa 64 bytes. bytes kan waxa laga wadaa waa inta memory-ga uu macnaha booska uu ka qabsanayo waay. hadda byte oo kale booska memory-ga uu ku yeelana waa 8 bytes. short 16 bytes. int 32 way. long 64. marka bytes ka marka laba qayb ah s bytes ta jira u short ta jira kuwan oo dhan uma baahan hadda inaan ka fikirno iska dhaafa. laakiin waxa muhiim ah inaan ogaano integer afarta inuu kala baxo byte short int iyo long. markaan variable abuurayna marka byte haddaan ka hormarino waxaa lagu qabanayaa memory-ga boos la-eg 8 byte marka inta uu qaado un kaliya variable-ka ku shubi kartaa waay. float 16 bytes lagu qabanayaa. integer 32 bytes. long 64. floating points marka oo ah wixii decimal ay saareen 3.5 325.8 waxaasoo dhan markaad variable aad samaysanayso isagana waa inaad ka hormarisaa ama float haddii wax ay tiro yar tahayna float baa ugu roon. hadday tahay decimals fara badan hadday la socdaana waxaad u baahan tahay boos fiican memory inaad ka qabsato 64 bytes ama decimal waa dhigi kartaa wixii ka badan double waa marka waxa waa ilaa iyo meel fog baad gaarsiin kartaa decimalska. intaan cashirka hore ku soo qaadanay string class-ka waa qaadanay waa markii qoraal wixii ku saabsan ah aan qorayno way. marka dib ugu laabano waxaan fiirinaynaa waxaan ku aadaynaa C# hadda waa ii furan yahay aniga halkaana maraynay. waxaan samayn karnaa intaan iska tuur. okay maanta marka waxaan rabaa inaan idin tuso haddaan hadda iraahdo int waxa xustaan int wuxuu ahaa maxaa ujeedaan waxaan shaashada ujeedaan soo ma allah ma loo jeedo waa kan. okay marka bal hadda sawirkii dambe in tusayna wax ka xasuustaan int ya macnaha muxuu ahaa ma xasuusan kartaan int waa text. int wuxuu noqonayaa waa numberska full miya mise comma may kan wuxuu noqonayaa comma uu noqonayaa waxaan maleynayaa suuqa waa number caadi wey helto waa number caadi wey exactly. marka haddaan hadda rabo number caadi inaan declare garaysto waxaan qorayaa marka number marka waa inaan memory-ga booska aan ka qabsanay magac u bixiyo maxaa magac la dhihi jiray waa variable soma. hadda waxaan leenahay int markaas waxaan leenahay kama soo qaad int ya codka waxaan leeyahay xogaa yar hacking baa ku jira oo hacking baa ku jira haddana
انا اوكي اوكي ميا اوكي لكن integer بس markaad xogaa tiraahdo u waa joogtid waa khadka baxaysaa haa haddana waa hadda fiicana okay suma hadda soo okay ha haddii codkayga idinka go'o iqabta ya marka si maaragtay aanan sheekada isaga wadin waaya int waxaan leenahay magac baan u bixinayaa marka waxaan leeyahay kaba soo qaad int xisaab baan leenahay markaas waxaan leeyahay halka waxaa igu shubtaa xisaabta waxay i dhexgelisaa 348 that means waxa weeye memoryga boss ii qabaan iri bosskaas waxaan u bixiyay magac meeshaas la ii qabtay waxa geli kara bosskaasna waan qeexay waxaan ku iri waa int that means waxa waa tiro buuxda ayaa geli karta way haddaan hadda banaanka usoo saarana maxaan dhihi jirnay console right line soma ahayn kadibna waxaan rabaan ku qori karaa waxa aan soo gashay waa macnaha waa iska faahfaahin yara waxaan soo geliyey markaasaan waxaan leeyahay plustan macnaheed waxaa loola jeedaa ku qaba waay waxaan soo geliyey waxaad ag dhigtaa markaas variable la dhaho xisaab aan marka su-aal idinka weydiiyo variablekan aan samaystay ee xisaab waxaan ku dhex shurtay 348 that means waxaa soo qormi doonta waxaan soo gashay kadibna xisaab lambarkaas halkaas booska waxaa geli doona 348 okay waxaan leenahay kadib console okay read line okay read key waa la dhihi karaa kadibna waxaan leenahay run saa u aragno waad la qaybsanaya ma arki kartaan umal shaashada madowga ah soo booday ma jeedaan xiriisuga waxa ii soo baxay intusayaa markaan raangareeyey maxaa ii soo baxay ma arkaysaan si fiican waxa aan soo gashay 348 booskaas waa booskii meesha ay ku qornayd variablekii aan ku qoray waa laakiin automatic wuu gartay inay ku dhex jiraan 348 mala garateen si fiican way maanta marka waxaan rabaa inaan tuso waxaan hadda practical markaan sameynaa si fiican u fahmi doontaan waxaan rabaa marka inaan tuso khasab ma ahan inaad qeexdo variableka mar walba waagi hore saas ahaan jirtay marka haddii hadda aan intaan aan comment saaro comment markaad saarayso saasaa la dhahaa macnaheedu waxa weye maxaa leedahay ii sheeg maxaa la lahaa turjumaha turjumaya codekan waxa weye compilerka haddaad saarto xidigtan wuxuu u arkayaa intaa ka bodow haddaan mar aad dur saarto geeskaas hal mana slash xidig hadhoona xidig slash ku xirto cagaar wuxuu ka dhiga waa intaas waxa waa ignorera ama ha fiirin ka tag way marka hadda waxaan sameynayaa code kale cusub aan qoraya waxaan leeyahay kaba soo qaad var baan ka hormarin kartaa haddaadan garanayn typeka aad soo gelin doonto ma xisaabba ma wax adigu qoraalba ma typeka u yahay ma taqaanid wax meesha la soo gelin doono marka waxaad iska qoraysaa var waxaan u bixinaynaa marka xisaab magac baan doonaa u bixin karnaa markaas waxaan dhihi karaa saasaan leeyahay markaas waxaan leeyahay waxaa la mid tahay 34 soo jeedaan wuu iga qaatay igumuusa diidin soo arkaysaan marka that means waxa waaye khasab ma ahan inaad typeka sheegtid waxaan dhihi karaa var markaas waxaan dhihi karaa name markaas waxaan dhihi karaa markaas waxaan gelin karaa qoraal caadi string ah Soomaaliya kaba soo qaad baan qoray soma igama diidayso ma jeedaan haddaan hadda banaanka usoo saarayo banaan soo saaritaanku way fiican tahay short command in iska barto intaan wax wado qofku wuxuu qori karaa console wuu qori karaa wuxuu qori karaa console kaas wuxuu dhihi karaa right line sida caadiga ah labada waan tusaaya wuxuu dhihi karaa isaan uu dhihi karaa markaas wuxuu dhihi karaa waxa aan soo saaraya markaasaan dhihi kartaa plus markaasaan dhihi kartaa xisaab waxa ku jira markaas waxaan dhihi karnaa haddana plus iyo markaasaan leenahay magaca markaasaan dhihi karaa plus markaas waxaan soo gelinaya waxay ku jira meesha name
kasan xiraya kadibna line-ka dambe aan ku darayo aan leeyahay console read line macnaheedu waxa weeye waa iska fiican tabada inaad ka daba qorto macnaheedu waxa weeye qoraalka markaad soo qorto haddaad waxaad dhigi kartaa read keyna waa dhigi kartaa bismaata marka saas hadda inta aan qoray waxa soo bixi doona waxa aan soo saaraya halka waxa ka soo qorbi doonta 34 magaca Soomaaliya mila fahmaysan marka mujidan haddaad doontana type-ka waad sheegi kartaa ma string ba ma byte ba ka hormarin kartaa ma float miya lambarku float ba ka hormarinaysaa ma double ba ka hormarinaysaa adiga un baa go'aanka iskale laakiin haddaadan garanayn type-ka badanaa marka hadhow barnaamijyooyin aad samaynayso kale waxa laga yaabaa type-ka soo geli doona inaad aqoon buuxi yahayba markaasoo kale maxaad samaynaysaa type-ki ma taqaanid marka badanaa waxay ugu talagashay Microsoft in la qoro var waa qori kartaa var kadibna xisaab baa leedahay automatically marka asaga fahmi doona in uu yahay type-ku iyo asaga sheegi doona tawa elephant Soomaan okay hadda marka waxaan garanaynaa aragna waxa soo baxa okay marka waxaan kala dalkanaynaa soo aragtaan okay that's what's area idiga markana iska xiraya soo aragtaan waxay soo baxay way kana ku socodin hadana hal maxay soo baxay waxaan soo saarayaa 34 magaca Soomaaliya anaa ku qoraday meeshan integer ahaan baa awl ku sheegaynay mugta kana string baa laakiin labada maadaama var aan ka hormariyay asaga fahmay inuu lambar tahay ima soo weydiin mila fahmaysan marka haddaadan garanaynin type-ka uu yahay waxaad qoraysaa var waa ka hormarin kartaa okay su'aal kale noo taala marka waxaan samayn karnaa waxaan ka hormarin karnaa haddaan iraahno waxaa samaynaysa ma sheekh uma jeedaan miya markastoo aad bedeshid inaad share stop share tiraadana raallo waa sax way share adana waa inaad dhahaa mar labaad hadda ii jeedaan Soomaan hadda ma jeedaan okay way si fiican that means marka haddii aad ila fahanteen waxa weeye waxaan samaynay maanta variable ma samaystay qaabkan doona u samaysan karnaa kadibna waxaan samaynay variable-ka marka inaan qasab iguma aha inaan type ka sheego laakiin way iska fiican tahay qofka inuu yaqaano different kind of types uu noqon karo variable-ku integer long string way badan yihiin hadhowna list waa noo imaan doonaan type-ka si loo qeexo taa waa ila fahanteen waa ka soconaya marka tusaalaan samaynayna marka waxaan sameynaynaa kaba soo qaad intaan laftigeeda iska tuur waxaan rabaa marka inaan tusaale yar samayno waxaan sameynaynaa variable baan samaysanayaa waxaan u bixinayaa age markaas waxaan leenahay qofkan age-kiisa waxa way kaba soo qaad 30 sano jira marka age waxa ugu jira 30 ogaadaya waxaan kaloo samaystay variable kale oo aan asna ku qoray aan leenahay maxaa leedahay tusaale ahaan waxaan soo qaadan karnaa name waxaan u bixinayaa okay Maxamed okay variable-ka markaad samaysato saa ku noqdo waxaan sameynaynaa maxaa leeyahay waxaan maanta xogaa wax ka qaadanaynaa waxa la yiraahdo condition statement-igu wuxuu muhiim u yahay in la fahmo in shayga la soo galiyay inaad controlsho haddaan hadda tiraahdo if okay age waxa ku jira age hadii waxa ku jira hadduu la mid yahay 31 hadduu age la mid noqdo waxa soo saartaa print line maxay leenahay console print line kaas asaga ku short command hadda intuu salaatan ay ahayd raala hada notice markii waan ku iri inaad qorto waxa kaaga fiican waxaad samayn kartaa ma ogtahay moogta inuu console right line lagu soo saaro laakiin waxaad samaynaysaa cw haddaan qoro oo aad taabatid taangeyta boodkaaga tab
laba jeer asaa ku qoray kadib halkan aan iraahdo هو شورت كات ويا wiilka waa short haddii marka waxaan leenahay age-ku 31 yahay fiiriya ama waxaan dhihi karnaa hadduu uu qofkan la soo geliyay age uu ka yar yahay 31 waxaan ku qoraynaa halkan waa caruur okay haddii marka uu 31 ka weyn yahay marka waxaan dhihi karaa else laakiin waan qori karnaa isla if kalaan qori karnaa haddaan rabo if si aan kumandiyaasha kugu badin age uu ka weyn yahay xisaabta waa taqaanaa suma flartan hore gadaa u socota haddii 31 uu haddii macnaha age maxaa ku jira yaa ii sheegi kara age waxa ku jira age hadda maxaa ku jira hadduu ka yar yahay 31 ha marka maxaa hadda igu jira age waxaan tishaabinaya maxay tahay meeqa way da'daas ku jirta ha sababtoo soo ma jeedaan marka horaan waxaan sameey waxa ka soo qaadan waxa inay salad tahay salad yar awdeed 30 baan ku dhexdhigtay Soomaa marka meel walba age aan la tago 30 baan ku jirta marka hadda waxaan leeyahay age oo 30 ah hadduu ka yahay 31 waxaan soo saarayaa waa caruur hadduu ka weyn yahayna hadduu 31 ka weyn yahay maxaan dhahaynaa angad ha qof weyn way Soomaa qof weyn ha wakaas waa qof weyn dareemaysan marka variable-ku marka meelo badan uu ka ciyaaraa waa asaga ayaa badanaa variable-ku waa qaadaha noo qaadi doona macluumaadka aan isticmaali doono oo barnaamijka meelo fahanteen okay hadda maxaad u malaynaysaa inuu soo bixi doono ma wuxuu soo qori doonaa systemku waa caruur mise wuxuu soo qori doonaa waa qof weyn Abdullahi عشان وحكوا سؤال لوضع ماشي سيصدني كوي صدنك hadda waxa soo bixi doonta ma qaybtaan akhrin doona tan soo qormi doonta mise tan waxa soo qormaysa takore sababtoo ah caruurta soo qormaysa waa caruur buu leeyahay okay aan fiirina marka okay haddaan raan gareynaa marka okay waxay soddon weeye moogta soddonka marka caruur weeyaan ha exactly sigi halkan waxaan gelinayaa kaliya console okay right line intaas kaliya aan gelina muhiim ah okay camera bin loogu dambeeyay way casharka haddaan bogsiinayo waa idin duuban yahay meesha waa soo geli doonaa okay waxaan tusayaa marka saade walana Cabdullaahi saxsiyan in kala aragno hayeen u jeedaan ma soo qoray waa caruur liajli markii uu conditionka soo gaaray aan ku celiyo meeshii aan ku celinayaa okay markuu soo gaaray halkan ayaa waxaan iri if haddii waxa age ku jira ay ka yar yihiin 31 waxaad soo qortaa waa caruur Khalid soo ku weydiiyay marka khadar ha haddii halka hadda aan ka dhigno 35 barnaamijku muxuu sameyn doonaa hadda 35 ka dhigtid hadda maxaa age ugu jira 35 okay 35 haddii ka yaraato 31 kana shaqeynaya haddii conditionkaas uu falsa noqdo ay ka yaraan weyso next condition buu gudbaya haddii 35 inta ku jirta ay ka weynaato halkan kana soo qormay okay meel fahanteen si fiican marka variableska muhiim jiddan way in qofku uu isku dayo in maaragtay uu training badan ku sameeyo maadaama ayaantu hore aan aad uga hadalnay all data types ko dhan aan ka hadalnay maanta marka muhiimadda jiddan oo muhiimadda noo muhiimka ah maanta waxay tahay inaan fahanno in variablesku uu muhiim jiddan u yahay inaan fahanno sababtoo ah variablesku waa wax dhan ee mar walba aad macluumaad ku qaadi doonto haddii wax aad macluumaad database ka soo akhriso waxaad ku shuban doontaa variable ama waxaad ku shuban doontaa waxyaalaha leeyahay listiga ama array ama waxaad ku qaadan doontaa marka taa waa elephant soo maahan suga marka hadaan wax ka tagin maanta planning aan fiirinayaa aan wax kale ka tagin waxaan kaloo rabaa inaan soo saarno waa kan
get type okay hal tusaale kale intuu sayaa oo aan rabo halka inaan intuso intaan hadda iska tiro video ku duwan tahay okay waxaan rabaa markii inaan mid sameeyno waxaan sameysanaynaa different kind of variables oo waxaan leeyahay var baan leenahay marka data u baahan sheego iyo waxaan leenahay kaba soo qaad waa 10 baa igu jira waxa kale oo leenahay variable kala sameysanay asagana var waxaan u bixinayaa str waxaan ku shubanayaa kaba soo qaad iska waran baan ku shubtay halkaas qoraal ah variable kala sameysanayna waxaan u bixinaynaa asagana dbl iska dhe saade waxaan asagana ku shubanaynaa 100.5 malena muqt kaba soo qaad ama 50 okay waxaan soo qaadanaynaa hadana var variable kala sameynaya waxaan leenahay is valid baan ku qoraynaa okay isagana waxaan leenahay waxaan u bixinaynaa true okay waa kuwan dhawaata inta ka hadalnay laakiin ku cishanaynaa marka dbl waxay u taagan tahay double miya double u taagan tahay exactly okay waa double loo ogeedo wax walba dhibic la way waxaan var float baan qoran karnaa waxaan qori karnaa ka wada ii sheeg flt baan iska qoraya ana iskala baxay laakiin data type-ka haddii si sax loo qorayo waa in la qoray ahayd fiiriya waa in la qoraa float markaas kadib la dhahaa tiro kaba soo qaad kadibna saa la dhaho la geliyay laakiin hadda maadaama var aan isticmaalayno waxaan rabaa in computerku asagu uu ii sheego data type-ku yahay mila fahanteen float waxaan gashanayaa 3.14 okay inta mila fahanteen way intaasoo dhan mid walba type-ka uu yahay kan hadda type-ku noqon doono yaa yaqaan type-kiisa saxda hadda oo barnaamijku uu sheegi doono kan Saciid oo sheeg type-kee noqonaya kan integer buu noqonayaa integer buu noqonayaa sax waa sababtoo ah way waxaan moogtaa xarafkan waxaan ugu shubtaa 10 waa integer marka systemku wuxuu u fahmay inuu integer yahay kana khadar kan string miya string way exactly waa string way لاجل qoraal oo dhan waa string way kana waa double saa ii sheegtay comma Abdullahi kan muxuu noqon doonaa wasleeda kan waa condition sama may waa condition may waa type waa variable moogtahay variable ka marka type ku noqon doono baa la iska rabaa halkaas ku qoranta daa fiiriso waa type ayaan toran ka hadal Cabdaan lama joogo waxa la boolean ka badanaa waa true or false marka waa maqasho exactly ha marka hadda waxaan sameynaynaa waxaan sameynayaa isug taasaan leenahay waxaan rabnaa inaan soo saarno type-ka uu yahay moogtahay waxaan leenahay type of waxaan leenahay type-ka I ku dhex jira maadaama aan qornay I waxaan leenahay is waxaan leenahay saas labadan xabo waxaan u gelinaa meeshan waxa weeye qoraalkan meeshan aan ku qoray meesha dhexdeeda waxaan labadan u geliyay waxa weeye halka waxa soo gelisaa shaygaas wixii ku dhex jiray e marka haddaan 0 dhaho ana waa ka hor waa imanoo iman doontaa saa haddaan hadda 0 kadibna aan iraahdo comma oo I aan iraahdo kadibna aan iraahdo aan ku daro function waxa jira soo qabanaya leeyahdo get type waxaan inta u sameeyay wax kale maaha waxaan rabaa maadaama var aan niri oo aan niri ay sameeysanay automatic ku ridnay oo aan integer meeshan ku qorin systemku automatic u ogaado in integer ay tahay waxaan rabaa systemku inuu hadda ii sheego war type-kaano maxaa tahay in anaga noo sheego hadda waxaan marka type-ka ay waxa ku dhex jira ii sheeg baa get type waa function wali maana gaarin laakiin functions wax kale ma ahan waa adeega oo macnaha ka dhex shaqeeya object-yaasha laakiin waa u imaan object waxay laakiin get type macnaheedu waxa weeye waa ay type-ka uu yahay ii sheeg way haddaan hadda marka aan run garayno barnaamijkan waxaan leenahay console okay karna read line okay saas noo dhe kan iska xir kadibna waa run garayna hadda wuxuu nagu dhahaa aragno
okay majeedaan lako inaan intaan xiro kan idinka ayamso majeedaan soo qoray wuxuu yiri the type of I waxa kugu jira waxa weeyaan system ahaan markii la fiiriyo waxa kugu jira int 32 waxba intu sayaa marka int 32 maxaa tahay sug marka aan ku laabto marka PowerPoint-ga haday fiiri meeshan int 32 waa maxay waa type ya 32 oo waliba inta jira Soma okay that means system-ka waxaan ka codsaday inuu ii sheego ay wax ku dhex jiro wuxuu ugu yiri macluumaadka ay ku shubatay waa macluumaad int 32 ah 32 bits ah wujud halkaas okay dib baan u laabanaynaa inka rally ah okay waa bedelaynaa markaan waxaan hadana soo qoraynaa console ama hadii kala shirku madeeni waxaan inaad la qabsateen okay markaas waxaan leenahay type of str oo type ka tahay maxay tahay is baan leenahay intii oo kana qalaya asaas dheh 0 okay come zero-dan waxay ka laga wadaa halka waxa soo gelisaa zero-dan waxa laga wadaa halka booskaas waxa soo gelisaa waxa ay ku dhex jira saan u arkano qoraalkan hadda fiiri type of I is soo halka ma soo gelin haday macluumaad waxa meeshaas ay soo akhriyeen function-kan waxa uu soo celiyay halka ku soo celiyo haday halka ku soo qorantay system dhibic 32 markiisan booskeedii way ila fahanteen hadda waxaan qorayaa str waxaad ii sheegtaa baan leeyahay waxaan leeyahay get type ka noo sheeg okay kadibna sidoo kale sameeyna console read line okay saafde ku xig haddaan shidana asagana haddaan bobsis iyo aan ku wado way istaajin kartaan ya okay ana faan gareyno kan iska xir okay type str get okay good but type ku yahay kana noo soo sheego okay halkan waxaan dhahnay console right line okay type of str is get type of string okay get type soo kaasa dal makan aan comment saarno waxa keenay waa intaan way kan iska tur hadana shaqayn hadii loo naga istaajinaya labadaba soo qoray hadaa idin la qaybsanaa wax ii suga waxaan soo qoray the type of str type ku jira waa maxay wujida string ha string oo maxaa ahay qoraalka string waa qoraal ha hadda systemka macnaha computerkii baa noo sheegay wuxuu leeyahay type-ka aad gelisay str variable-ka type-ka ku shubatay waa string very good waya aan ku laabanaa hadda programming meeshani waxaan fiirinaynaa asagana haddaan hoos u dego console okay saade waxaan leenahay type of meesha aan ku shubana muxuu ahaa dbl is okay halkan waxaa isoo gelisaa baan leeyahay 0 qor kadibna saade str ma waxaan rabnaa fiirkee way waa dbl soma okay get type ku yahay noo sheeg get type waa function haday ma ogtahay somina arkeen inaan var ba intaan ka hormariyo systemku type-ka uu yahay shaqadiisa ma wuxuu ka fahmay laakiinse waxa uu fahmayo ayaan waxaan rabaa inaan weydiiyo computerka get type waxa waa ii sheeg type-ka ku jira I ugu yiri int ii sheeg type-ka ku jira str waa string ugu yiri hadda yaa sheegi kara type-ka ii sheeg dbl markaa muxuu soo qori doonaa 100.50 laakiin tawa tiradii type waxa la dhahaa moogtaa wuxuu ma double ba ma int ba ma float ba ma byte ba ma char ba
ma string ba saku so ano var kaliya ku ka hormarnay type-ka hadda double meesha dbl kan waxaan gelinay tiro decimal type kee bay qaadan kartaa isleeyihiin double aan fiirina marka bal double soo qor aragnay okay هذا اللي غيب سنة مرلوات محو سوق بصدق محو يري double the type of DBL variable kala dhaho waxaad ku shubtay buu yiri wax double system dhibic double markiisan oo double na waxa weeye wax walba decimals wata waa waliba dhaadheer waad kala dhacdo ma lahayn marka sidaa daraadeed waxaa la rabaa variables ka inaad si fiican ugu trainaysaan next time oo beri casharku wuxuu noqon doonaa marka inaan u gudubno waxa la dhaho inaan horta marka hore qeexno waa maxay object kadibna class aan qeexno kadibna aan class iyo object iyo variable isku xirna hal mar sababta hadda variablada waa muhiim jiddan waaye waa wixii adiga tirooyinka memory inta qabsato boss ka qabsato magac u baxsato inaad wax ku shubato way laakiin si hadhoona moogtahay programming wuxuu cajiib ku yahay waa sida bini aadamku u noolyo kala waay adduunka moogtahay waxyaalahan wada shaqeynaya dhan waa objects interaction ka dhaxayso ma bini aadamku waa object qofka shakhsiga waa object computerku waa object qaadada waa object kursiga waa object la kulligood wax ka dhaxay wada shaqeyn programming saas oo kala waay objects waxa weeye sababta loo yiri object oriented task way objectyaal fara badan oo isla isu keenay way oo kadibna ay ka dhalatay wada shaqeyn kadibna system ka soo dhaxay way marka variable marka fahantaan berita waxaan u gudbinaa insha Allah object hadii wax su'aal qabin okay waxaan ku jiraa umayna hadda meeshii dhexe waa casharkan intaas nagu eegay berita marka object class baan u gudbi doonaa waa boosiin haddii alla idmo haddii inaad waxba ku dareynin